sawir gacmeedka ama farshaxanka ma ka mid yahay miidyada jawaabta waxaan ku leeyahay haa balse dadka aanu horta horbal u bayaaniyo waxa macnaha farshaxanka uu yahay farshaxanku ama sideedaba miidyada waa aalad waaye aaladaasuna waxay keentaa dadka ayay wax bartaa akhbaarta la socodsiisaa u warantaa waxa adduunka ka jira dad baan isku howliya ayadana waxay ku timaadaa dhowr qaabood bay ku timaadaa intaan hadda ka xasuusanahay kow ayadoo qoraal ah labo ayadoo cod ah oo raadiyaasha ka baxa saddex ayagoo sawirro ah oo tv-ga ka baxa midaan su-aashaan la weydiiyey haddaan dib ugu laabto waxay tahay farshaxanka jaraa'idka waxaa weeye waa mid ka gedisan mid intii hadda aan sheegnay inta badan dadka Soomaaliyeed marka ay maqlaan waxay isleeyahay wax ku soo xasuusan doonaan sawir gacmeedyada siyaasadeysan maaragtay uu sameeyo Amiin Caamir oo aad iyo aad munxarif uga arrinkaas marka waxa loo isticmaalaa karakter magacyo waxay leedahay badan bay leedahay afka qalaad lagu yaqaano af carabiga karikateer baa lagu yiraahdaa ama af ingiriiskana waxa lagu yiraahdaa cartoons baa lagu yiraahdaa macnaheedu waxa weeye waa sawirka hadda hortiina ka muuqdo oo aniga Cabdirasaaq Xuseen Geediya waa sawir la yaqaano dhan laakiin karikateer waxa loogu bixiyaa ama cartoon waa mid gacan lagu sawiray oo aan ahayn mid sawir aalad ay qaaday haddaba taariikhda farshaxankaas wuxuu soo bilowday inta aan hadda ka garanayo qarnigii 16aad wuxuuna ka soo bilowday Germany maadaama aaladaha wax lagu daabacay ay yaraayeen ayaa rag waxay fakareen inay bal ku cabiraan waxyaabaha ay doonayaan ama xayeysiinta ay sameeysanayaan inay ku cabiraan ilaahay ku rooyahay mashiinkaas yarka ama sawir gacmeedkaas la qaado waa soo korodhay ayadoo kalar ah ay u soo gudubtay maxaa la yiraahdaa qarnigii 18aad New York wixii ka dambeeyay waxa loo isticmaalay waxyaabo tiro badan kow waxa loo isticmaalay in propaganda political lagu sameeyo ka bacdi haddana waxa loo isticmaalay in propaganda xayeysiin private lagu sameeyo iyo wixii kale oo ka disan haddaba annaga Soomaaliya haddaan nahay joornaaladayada soo baxa waxa ugu muhiimsan oo qaarkood ay soo saaraan karikateeradaas ninka Amiin Caamir la yiraahdo oo ah nin sawirka gacmeedka sameeyo kuna cabira wax alla wixii markaas wacyiga adduunka ka jira ama wacyiga Soomaaliya ama dareemada Soomaaliyeed wax weyn bayna ka qabtaan markastana waxaad moodaa inuu dadku u soo gudbiyo ayadoo sawiran ama xogaa yaro hadal raacsiisan marba ummadda Soomaaliyeed meesha marayso farshaxanku waxa uu ka mid yahay aaladaha loo isticmaalo warbaahinta runtii wax kale ma ahan farshaxanku waxyaabaha uu aad iyo aad u fiican waxa ka mid ah qoraallo fara badan oo la akhrinayo ma ahan laakiin waxa waaye sawirro oo gacmeed ah oo runtii u dhigma akhrinta waayo iyada u baahan inaad fahamto oo fasirato marka always farshaxankaasi waxba ku saleysan yahay ama ha noqoto ama siyaasad ha noqoto ama sport ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto always waxa loo isticmaalaa waa gudbinta qofka bini'aadamka ah waxyaabo waxa jirta oo markuu arko ama uu fiiriyo uu leeyahay alla waxaas ay ku bees garaysan tahay aragti ahaan marka waa run waan wax loo baahan yahay in bini'aadamku maskaxiyan uu ka shaqeysiyo oo ah in loo isticmaalo aalad ahaan in warbaahin ahaan loo gudbiyo sababtoo waxaan xusuustaa sportiga Soomaaliya gaar ahaan waxaad arkaysaa Amiin Caamir oo kale farshaxankiisii ciyaaraha marka loo fiiriyo dhowr jeer waxaan ku arki jiray magaalada Muqdisho naadiga for example ama Horseed ama Jeeyo ama Badda ama dowladda hoose dad waxa arkaysaa ciyaaraha si gaar ah kooxaha u xiiseeya marka qoraal ahaan waxa laga yaabaa koox in laga badiyo markaas waxa laga yaabaa roob doo ama in cadceed qorrax aad iyo aad kul ay meeshaas ka jirtay marka waxa laga yaabaa in qofku inuu yani uu ku muujiyo yiraahdo
maanta xareed baa la cabsiiyey ama kooxdaasi qoraxda ku laato oo waa dhaqaaq waayeen kooxdii kale waa ku carartay iyo iyadoo oo loo soo qaadanaya sawir ahaan oo sawir gacmeedka farshaxanahan loogu soo gudbinayo marka intaasi ayaan kaga baxaa in aalad ahaan loo isticmaalo warbaahin farshaxanka waxaan rabaa inaan marka hore su-aashaas saameynta inta ay ku leedahay dadweynaha intaan la gaarin bal horta aniga saameynta ay ugu yeelatay inaan horta hore halkaan dadka uga sheego amiin caamir wada shaqayn baan yeelanay macrifana waan ahayn sideetameeyadii waxaa jiray joornaal la yiraahdo oo xisbiga soo saari jiray oo la yiraahdo ogaal ayaan ka wada shaqayn jirnay aniga isaga wuxuu ku lahaa waa markii ugu horeysaan u malaynayaa isaga taariikhda iga haya oo la sameeyo karikateerkaas uu sameeyo daba joornaalkaas jimcihii soo bixi jiray waxaan isku dayi jirnay bal inaan wacyi gelino ama aan waxa loo yaqaano daliilka toosinta ku sameeyna hay'adihii markaa jiray oo dawliga ahaa oo dawladda kacaanka ahayd marka waxaana weligii iloobeyn markuu nagu soo biiray amiin caamir qayb laga siiyey safxad laga siiyey keligii safxadaas karikateer bay ahayd annagoo markaas dhaliilayna wakaaladii xoogga korontada Soomaaliyeed eenaya ayuu waxaan weligii iloobeyn karikateerkii markaa uu ku fasiray waxqabad la'aantii markaa ka jiray xagga koronto siinta wuxuu sameeyay korontooyinkii iyo xargihii magaalada xamar ku faahsanaa ee ballaaranaa ee laga filahayay inay dab soo gudbiyaan oo qofkii taabtan uu ku dhimanayay oo dumarkii Soomaaliyeed ay ku waranayaan dharkii taa micnaheedu waxay tusaysaa qof kastoo halkaa ka fiiriya in wakaaladaas wixii loo idbaday aysan sameynin oo halkaas aysan dab ka socon marka waxay igu ahayd qayb ka mid ahayd joornaalka waxay ahayd 10 dhan oo 2 page ama 3 page laga qori lahaa ayuu wuxuu ku muujiyay qalkiisa caaradiisa oo ah xargihii oo mariysaariyihiin iyo dumarka Soomaaliyeed oo ku dhaqmay haddaba saameynta Soomaaliya ay ku leedahay waagu markuu bariyo Soomaaliya nafaqay noo tahay inaan iska wareysano dadka ugu horeeya maadaama ay dad badan oo shaqaada yihiin intay joornaalada dhan ay website-yada akhrinayeen waxa soo kooba waxa soo dhan waxa markaa jira xarakaadka iyo qoraalka iyo sawir farshaxameedka uu sameeyay amiin caamir iyo gabadhiisa ayaa ku filan wixii maashaas aan iska wareysano marka taa waxay ku tusaysaa haddii akhbaar siyaasadeed tahay iyo haddii kaleba halkaas ayuu nooga sheekeeyaa dadkuna aad bay ugu sahlan tahay intay akhrin lahaayeen 3-4 kolom ama 20 daqiiqo ku akhrinayaan inay isha mariyaan wuxuu amiin caamir soo qoray runtii haddaad fiirisid aad marmarka qaarkood la yaabaysid wacyiga ay ka turjumayaan sidoo kale ayadana sawir gacmeedka ama farshaxanku sida hore kugu sheegay waa aalad loo isticmaalo warbaahin in lagu gudbiyo aragti ahaan marka isticmaalka farshaxanka marka fiisid waxa laga yaabaa in hal gaari kaliya in uu qofkan u sawiro marka waxa laga yaabaa isla gaarigaasi inay saaran yihiin يعني dad madax ah ama madaxweynaha iyo prime ministerka iyo yani qolka wasiir ah oo gaarigiina inaan lagu lahayn marka gaarigaas oo aan lagu lahayn oo meeshii fadhiya oo qofkiina hogaamintii iyo shukaantii wada steeringkii marka dadka ummadda waxay leeyihiin maxaa ka maqan gaarigan ummadda dhan waa basaaranta dhaqaaqil ay waa maxay marka micno weyn ayuu leeyahay oo ah siyaasiyan waxa laga yaabaa in waxabii loo baahnaa in wadanka laga qabto ama ummaddu ay sugayso oo kale ama siyaasad aan rab in hirgeliyo inaanay soconin marka waxa laga yaabaa sawirkaas kaliya oo intaas madax ay saaran tahay gaarigaasi oo aan lagu lahayn oo farshaxahan loo subiyo waxa laga yaabaa in يعني qofka inuu pages and pages oo ah qoraallo inuu ka fiicay intaas marka qofka bini aadamku uu dareemi karaa siyaasiyan inuu leeyahay waxba ka maqan marka sidoo kale mar labaad farshaxanku waxaan aaminsanahay inuu yahay aalad يعني qofka caaqilka ama siyaasiga ah markuu arko inuu ka dhameysan karo kana bogi karo micnaha iyo waxyaabaha ka dambeeya barnaamijkaas waxaan rabaa inaan xoogaa yara aqoontaan u lahaa ama aan farshaxanka ka sheegay inaan maaragtay uga faa'iideysto dhammaan guud ahaan miidiyadu
وآلد واحد المامتوي وحي حريتها أساسية بكمتها فرشحان كانوا واحد كمديا هي ميديا كمديا هي حريتها أساسية يدتكو إليهن إلي سوق بيان هذا بقى وحوي قفكو وحبقبا هدوس قلدمن قفكو وحقبتها وحقلدمه قفان وحقبن بقلدمه marka waxaan leeyahay waxa jira mabda adduunku ku shaqeeyo oo ah waxa la yiraahdaa isdaliilka toosinta marka dhamaan waxaan ku baarta kula talinayaa ama u arkaa miidiyada in ay wax dhaliilaan qofku markii la dhaliilo oo la article gareeyo dhaliisha uu sameeyay oo la ogaado dhaliisha markaa dhacday ayuu qofku sixi karaa wixii oo ka lumay ama xumaan oo ka dhacay waxaan runtii kartuunistayaasha annaga noo sameeyaan farshaxanka waxaan aad ugu bogaadinayaa inta hadda aan ku arkay ayagoo meel ka dhacaya maan arag balse waxay markasta ka turjumaan wacyiga markaa jira haddii ay shakhsi ku socoto haddii maamul ku socoto iyo haddii ay madaxweyne ku socoto ama haddii ay hay-adaha dastuuriga ay ku socdaan macnaheeda maaha in loo gafay ayagana xaq bay u leeyihiin inay jawaabtooda bixiyaan ay u yeertaan isla markaas aaladdu waa sidaan sheegay waa aalad propaganda waa aalad wacyigelin waa aalad wax isku sheeg waa aalad sixid waa aalad isweydiin hadduu qalad jiro waa aaladii wax lagu sixi lahaa intaba marka waxaan leeyahay runtii waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dhammaan miidiyada Soomaaliyeed iyo ragga ka shaqeeya duruufaha adag ay ku shaqeeyaan waa maaragtay oo ku bogaadinayaa hore u socdaan leeyahay mar waxa dhici doonta lidin abaal mariyo hadii ilahayd assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sidoo kale farshaxanku waa run waa aalad runtii oo u baahan kulli horta waxay ku muujisaa in meeshaas ay wax ka jiraan haddii ay wax ay socon waayeen waxaan xusuustaa sidii wargeyska ogaal oo kale ee Soomaaliya xilligii barisamaadkii waxa laga yaabaa inuu wasaaradda isboortiga markaan tagno geed weyn baa ku dhaxay oo la jiray hadda anigu ma garanayn geedku ku yaal laakiin geed weyn baa ku hoos fiican oo qabow leh marka dadka madaxda ah iyo wasaaradda maamulkeeda iyo kulli wax isugu hoos imaan jireen geedka hoostiisa marka waxa dareemaysaa marka meeshaas in lagu wada hadlo dadkii yani jidka soo maray kuwii ciyaartooyda ahaa kuwii tababarayaasha ahaa madax kale inay imaadaan meesha ku wada sheekaysta marka waxyaabo fara badan oo lis dhaleeceeyo for example oo ahaa waxqabad la'aanta ka jirta ama dhaliil oo loo soo jeediyo iyo dadkaas markaas maamulka gacanta ku hayay marka runtii amiin caamir wuxuu soo inta badan soo qaadan jiray dadka markay imaadaan in farta isku fiiqfiiqo ama hebel basaasir and then kadib waxaad arkaysaa week bacdi in wasaaradihii xataa wasaaradda kaliya sportiga baahan laakiin wasaaradihii kale wadanka tii markaas weegaas uu qabto ogaal farta ay ku fiiqdo farshaxankaas loo isticmaalo in madaxda kale ee ra'iisul wasaarihii ama madaxweynaha ama barnaamijkii kale wasiiradiiba in talaabooyin aad loogu qaadi jiray ay noqotoba in amiin caamir iyo farshaxankiisu iyo wargeyskaasi ee ogaal ahaaba in ay u noqotay umadu in wax ay farta ay ku fiiqaanba in week ka dambeeyo ama bishi ka dambeysaba in isbedel xoog leh lagu sameyn jiray wasaaradahaas iyo barnaamijkooda marka farshaxanku sawir gacmeedkaasi ma aha mid oo wax يعني waxtar u leh ama waxba qalkood lagu horumarin karo marka meel dhaliil lagu arko yes wuu ahaa runtiina wuxuu ahaa meel ummadda يعني aqligooda iyo miisaankooda isticmaala in meel hadii farta lagu fiiqo dhaliisheeda la soo magacaabay in wax laga qaban jiray marka yes waa aalad wax ahayd oo ah loo isticmaalo horumarin iyo wixii la rabay barnaamijka lagu fuliyo ما شاء الله ولا هذا اللي ودي أنكهر عاوة أمين عامر محو انتهلك أيو كلية أما كلها وزارة ورفافتها حدي نقطة روايد حدي نقطة فيلم حدي نقطة شاكو حدي نقطة فرشحن حدي نقطة قرحن حدي نقطة حسوس حدي نقطة عين كسة ورفافتها وحوكاها xibin culus oo haddaanu nahay hoobalada waa beri
gaar ahaan haddaan isku ahayn wasaaradda warfaafinta haddana hobolada waa beri qayb libaax ku lahaa ama xasuustiisii amiin caamir taariikhdiisa lagama sheekayn karo intii taqaanina waa taqaan intaan aqoonna waa loo tilmaamayaa amiin caamir wuxuu ahaa geesi ku caanbaxay farshaxanka gacanta ama qofkii oo taagan inuu masawiro ama filinkii wuxuu ahaa iyo siduu ekaa inuu masawiro amiin caamir taariikh wuxuu ku lahaa wargeysyada ama wararka ay dowladda markaa ay faafinayso ninka darbiyada laga akhristo ahaa oo sheega wuxuu ahaa amiin caamir ninka marka riwaayad la dhigayo ka sheekeeya riwaayadda iyadoo qoraal ah amiin caamir wuxuu ahaa ama uu yahayba nin caalim ah oo ku caalimoobay ku macallin ku ah professor ku ah masawirka gacanta aragtida maskaxda xasuusta hal abuurinta la hal abuuro riwaayadaha waa la hal abuuraa farshaxankana waa la hal abuuraa haddaadan hal abuurin de sheekadii kuu imaan mayso waxaan ku jecelahay 1 minute buu wax ku hal abuuraa anigu haddaan ka hadlo gaar ahaan myself haddaan ka hadlo amiin caamir waxaan isku ahayn wasaaraddii warfaafinta ka sokow waxaa aan dhihi karaa amiin caamir waa wiilkayga walaalkay wuu iiga sokeeya waa wiilkayga wiilkaa iyo walaalkaa marbay kuu kala sokeeyaan wiilkaygu wuxuu ku yahay waxaan af aqaan oo gacantiisa aqaan oo hadalkiisa aqaan oo oraahdiisa aqaan oo cabirkiisa aan aqaan weeye amiin caamir amiin caamir intii taqaana waa taqaan anigu waxaan ahay hooyada u bixisay amiin caamir markaan arko wuxuu samaynayo baan waxaa idhaahdaa alla maa gacan la siiyo yaa gacan siinaya de dowladna tan hadda dhalatayna waa naga fogay tii kalena de maba dhalan waxaan dhihi jiray geesi tolwaaye waxaa lagu baxshay magacaa yacni siduu yahay inkastoo dadku wada yaqaano oo xasuusta hiil gacal buu u baahaya oo soomaalinimo maxaa jira runta kama gabado runtuu sheegaa waa nin farshaxana waa nimanka lagu faano waa nimanka adduun weyn waxaan ku idhi amiin caamirow waxaad ku raalli noqotaa baan ku idhi inaad soomaali tahay marka maalin maalmaha ka mid ah ayaa lagu xasuusan doonaa ama wax lagu tari doonaa gaajo ku shaqee oon ku shaqee rafaad ku shaqee war adigaa wax noqon doontid annagana wax naga dhigi doontid samir baan dhihi jiray maantayto amiin caamir sheekadiisa midaan halkan kusoo koobi karo ma aha markii la joogo oo laga yimid dalkii oo halkan la yimid amiin caamir waa ninka keliya oo sameeya waxa qofka fanaanka ama u baahdo ama tusaalaha waa ninkaan ka qaadano haddaan riwaayad samaynayno haddaan sheeko samaynayno haddii aan maxay ahayd wuxuu nagu dhaliyaa wadanku wuxuu yahay waa wadani soomaali ah wuxuu nagu dhaliyaa hal abuurnimada waxaan ka hadli lahayn weliba wuu naga dheereeyey anigu hadda waxaan ahay qolada ka soo horjeeda markaan maqlo filin oo carabi ahaa ama hindi ahaa ama maraykan ahaa oo af soomaali lagu turjumayo waan ooyaa waxaan ku iraahdaa ma annagaa dhammaanay inkastoon kala fognahay haddana waa dhaliil naloo soo jeedinayo shicibku oo u leeyahay may fanaaniintu wax sameeyaan inkastoon ka aragno inaan samayno ay ahayd amiin caamir waa nin aanan taariikhdiisa soo sheegi karin laakiin taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheeda ninna ma diido ninna ma doonto runtay dir ka qaada taariikhdu ayadaa iscadaysa ninna ma qoro marka one day maalin maalmaha ka mid a ayaa xasuusta amiin caamir ilmihiisa iyo ilmahay dhaleen iyo ilmahay sii dhalaan bisnoonihiisa lagu xasuusan doonaa taariikhda iyo halka uu ka joogo farshaxanimada marka waxaan leeyahay amiin I wish you all the best.